السلام عليكم أصحابتي وأنا سلام والبا دونك كجبتها ولكن ودنيا قرنك Soomaaliyeed Cabdimalik Muraad maanta waxa dhacay maxaan ku yani ishag dil bahalnimo ah oo aad u foolxun oo loo geystay generaalka Soomaaliyeed ee maartay General Sheego ee qaranka u adeegay waxa la socotaan in hadda koor dawladda Xasan Sheekh ay xirtay maadaama ninkan uu sira badan ogaa oo uu ka baqay Xasan Sheekh siraas inuu banaanka keeno kadib markii ay isku dhaceen maartay macnaha markii ay xuquuqii ay ku lahaayeen ay ka waayeen ay maartay macnaha ayaa dawladda Xasan Sheekh oo muddo uu maartay macnaha generaalkaas u shaqeynayay saaxiib gooniyan la ahaa markii la soo xiray oo muddo u xirnaa ayaa hadda waxa la sameeyay in ninkii la yiraahdo waa jiraday oo isbitaal la keeno kadibna isbitaalka lagu sameeyo halkaasna uu ku geeriyoodo marka waxa weeye waa dhacdo aad iyo aad u foolxun maanta dawlad maartay macnaha madax bannaan oo hay'ad madax bannaan oo baarayana ma jiraan waxaan ka codsanaynaa caalamka inuu arrintaas soo farageliyo aan ka codsanaynaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan baaq u direynaa in ay baaq u diraan beesha caalamka iyo maartay macnaha ama maartay si baartaan ka madax bannaan dawladda Soomaaliya loo sameeyo sababtoo arrintan waa arrin dhacda aad u foolxun ah in generaal qaranka Soomaaliya u shaqeynaya oo maartay macnaha u soo shaqeeyay wax badan u soo qabtay in maartay macnaha ishag saas loo dilo qaab noocaas oo loo dilo inta la xiro kadibna la dilo waliba si sharci darraa lagu xiro iyo dambi uu shaqo ku lahayn inta loo malmaleego oo maartay macnaha hadhowta maxkamad been la saaro saasna lagu xiro marka waxa weeye waxaan ka codsanaynaa maartay shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan maartay macnaha ishag intay danqayso dhimashada General Sheego in maartay barnaamij la sameeyo in maartay macnaha ishag waxaan dawlad maahane in si wada jir looga hortago musiibada Soomaaliya ku habsatay anigu waxaan qabaa haddii maartay macnaha groupkan mafiyada Soomaaliya laga xoreeyo inay Soomaaliya israacayso ayaan qabaa groupkan mafiyada ee damjiid haddii dalka laga xoreeyo shacabku inta gacmaha isqabsadaan ay dawladdan banaanka iska dhigaan in al-shabaabna aan ka xoroobayno si wada jir ah Soomaaliya ay noqonayso Soomaalidu ay yihiin dad isjecel oo maartay macnaha ishag yani isfahmay inay yihiin ayaan aaminsanahay marka maalin walba qof ayaa la qalanaya horteena waxaan u dulqaadan karna ma ahan si wada jir ah looga hortago ayaan leeyahay sinaan shargalay fiidooga